الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى waxaan ka baryaa kulankeena inuu ka dhigo kulan barakaysan. ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo sakiinadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku soo dejiyo. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryayaa inuu carabka iyo qalbiga ku sugo kelimadda xaqa ah. ilaahayna subxaanahu wa tacaala qalbigiina iyo dhegihiina u furo, nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kiisa wanaagsanna raaca. aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. انت كدب ولا ليال كلمة نعاوة خصوصينتها وحي كصابصنتها هي القلوب القاسية. أما قسوة القلب قلبك أوأت كاظة تاسو إلهي سبحانه وتعالى دتك مؤمنين وألا سبحانه وتعالى si gaar ah uga wacdiyey oo ku amray in qulubtoodu ay khushuucdo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo hogato oo ilaahay subxaanahu wa tacaala mid ku xiran oo dabacsan oo jilicsan oo wacdiga iyo waanadu ay galaan oo saamayn ku yeeshaan ay noqdaan, maadaama qalbigu uu yahay meesha qofka bani aadamka uu ka nool yahay. sidii nabigaba calayhi salaatu wasalaam oo sheegay alaa waina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu waidaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalb. waa qalbiga meesha bani aadamku uu ka nool yahay oo uu ka caqliyeysanayo, wax ka arkayo, meesha uu ka indhabeelayo, ka caqli beelayo, ka garasho beelayo, waa qalbiga weeye. indhala-aantu meeshay kaga dhacayso waa qalbiga. fainaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluub alatii fi suduur. meesha uu ka caqliyeysanayo oo yani garaadkiisu uu ka korayo waa qalbiga weeye. afalam yasiiruu fi اlardi fatakuna lahum quluubun yacqiluuna biha. qalbi ay ku caqliyeystaan miyaana lahayn. ilaahi subxaanahu wa tacaala gaalada wuxuu ku tilmaamay in qalbiyadoodu ay dhinteen. lahum quluubun laa yafqahuuna biha. ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiyo ay inaan waxba ku garanayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ku garan waayeen, kaga cabsan waayeen ayaa ku yaalla. xubintii way ku taallaa laakiin kama faa'iidaysa. sidoo kale dadka munaafiqiinta la yidhaahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay qalbigoodu jiran yahay. fii quluubihim marad. jiradu waxay kaga dhacday waa qalbiga weeye, meel kale maaha. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فيطمع الذي في قلبه مرض. qofka muؤminka haddii uu xataa macsida ku dhaco waxa weeye qalbigiisa ayay taabanaysa, markaasuu la jiranaya oo jiro ay ku dhacaysa. marka jiradaas haddii ay ku dhacdana qalbigii uu adkaanaya. marka maadaama qalbigu meesha ugu muhiimsan uu yahay bani aadamka ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kala hadlayaa dadka yani qalbiga kala hadla ilaahay subxaanahu wa tacaala. qalbigaas sida uu noqdo iyo xaaladda uu ku sugan yahay ayaa xaaladoodu noqonaysa oo sida xaalkooda ku sugan yahay uu noqonaya. waa kan ilaahay subxaanahu wa tacaala alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wama nazla min alxaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. marka laba nooc buu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda. laba qalbi khaashic ah. an takhshaca quluubuhum lidikri illaahi. maxay ugu khushuuc weysay dikriga ilaahay? yani maxay u noqon weysay mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u debecsan oo xusuusan oo ku xiran oo u jilicsan. iyo faqasad quluubuhum, kuwa qalbiyadoodu adkaadeen ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay. meel kale aayad kale ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kan ku tilmaamay qalbiyaal debecsan
oo jilicsan oo layin iyo kuwa qaasi الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده إلهي سبحانه وتعالى مركا وحكوت المامي قلبي يضوض إني أجلعان كتابك إلهي سبحانه وتعالى ذكرك إلهي سبحانه وتعالى يسود بعسنادين أو يسامين كيالته مركزته أو أي مغلان أما أي أخريان أما أي دقيستان قلبي قوضا أي سامين كيالته قلبي قوضا أي سامين وين كيالته وحبي كبدشة صلاة مركي تكنيان وصلاة قرآنك أي كو أخرينيان أما لغو أخريو iyo marka ka dambaysa waa kala duwanaanayaan qofka mu'minka uu kala duwanaanaya xaaladdu ku soo galay xaaladan ayin buu kaga baxay maxaa dhacay wuxuu dhageysanayaa aayaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhageysanayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa marka saamayn bay ku yeelanaysaa waxbay ka bedelaysaa marka waxaynu ka hadlaynaa waa qalbiga qaasiga ama adkaada waxay qulubtu ku adkaataa sabab baa keenayso sababta aan uga hadlayno waxa weeye hadda ilaahayba subxaanahu wa tacaala sida uu dadka mu'miniinta u xusuusinayo war miyaan la gaarin waqtigii qalbigooda u khushuuci lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda suurat alxadiid ibn cabaas iyo ibn mascuud iyo culimmada waxay leeyihiin waqtigii saxaabada yacni aayadahaas ay soo degeen oo lagu xusuusinayay iyo waqtigii islaamkuba yimi wax yar baa u dhexeeyey sanadkii 13 ama 14 ayay baahayd marka ay soo degayso oo quraanku bilowday markaas way marka yaani culimada qaar kood sida yiraahdeen ama sida imaam al-Qurtubi uu tilmaamayo tafsiirkiisa markii Madiina ay yimaadeen waxa batay dabcan xoolaha la helay adduunka la helay sidii hore waa laga soo baxay marka xaaladii lagu jiray marka in la xusuusiyo qosolkii baa batay oo waxa batay hadalkii iyo laqwigii marka in la xusuusiyo alam yaani lilladheena aamanu an takhsha'a qulubuhum lidhikri llahi lagu wacdiyo wama nazala min alhaq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد كوي هراء كتاب كالسيي سيدا قلبي قوض قاسق ونغضي أي اللو قدقية وأها يهودية نصارى إلهنا سبحانه وتعالى أيضا كالأو كتل مامي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسو يهودي برير بني إسرائيل إلهي سبحانه وتعالى كلها لأي مدينة جوتي على قلبي النبات كذا وياشد يكون كتابك السيي هذا قرب مري كتابك بدلي تحريفي نبي دلي كتابك كلا يحذي توراة ما لسك قطور إلهي سبحانه وتعالى حوصميا قلبي قاضي بعد كذا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة marka waxa ummadan looga digayaa sidii yahuud iyo nasaara qalbigooda u adkaaday inay qalbigooda ka ilaaliyaan inuu saa u adkaado sida yahuud iyo nasaara uga fogaadeen tawraat iyo injiil oo u dayaceen inayan xaqan ilaahay soo dejiyay wama nazala min alxaq inaanay ka leexan oo ka wacan ee ay ku dhaqmaan noloshooda ku dhaqmaan xukunkiisa ku dhaqmaan hogaamiye ka dhigtaan isaga hogaamiye ka dhigtaan wax walba oo ay qaadayaan talaabo walba noloshooda kamida haday tahay dhaqaale haday tahay qoys haday tahay siyaasad haday tahay aqoon cilmi wax walba oo noloshooda ku saabsan inay ku dhisaan waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala xaq ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo dejiyay walaalayaal marka in arrinkaas aynu xusuusino waxa keenaya qaflada oo badanaysa طال عليهم الأمد بير إلهي وحي النسبيي قسوadaas ku dhacday فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم markii waxyiga ay ka fogaadeen
وكتابك إلهي سبحانه وتعالى أسود دجية تحريفيين وكفوا قادين وقت يقول راضي أي كفوا يهين أي قلبك قللي taas marka waxayna tusinaysaa haddii laga fogaado wacdiga iyo waxyiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo dejiyey ku dhaqankiisa iyo dhegaysadkiisa iyo qaadashadiisa iyo hoggaansankiisa qalbigu waa adkaanaya qalbigu hadduu adkaado oo qaasi noqdana wax geli mayaan khayrku geli maayo iftiinku geli maayo hanuunku geli maayo wax arki maayo undhabeelaya fainaha laa tacmal absaar walakin tacmal quluub alatii fi suduur qof marka indhala oo soconaya meel mugdiya weliba ayuu noqonaya waxaa keenaya yani khafladdu inay badatay zamanadan badan adduunyada iyo sida dadkii muslimiinta ahaa ugu cararayaan inay badatay oo aada moodo xataa dadkii dalabatulcilmigii iyo culimadii iyo meelihii lagu soo carari jiray ee aakhiro jacaylkeeda loogu soo carari jiray in adduunye jacayl uu ka yimaado iyada laftigeeda oo ay kula tanaafusaan yani sidii culimadii salafka raximahum allahu tacaala waxay oran jireen yani qofkii adduunyada kugula tartama oo kugu faana aakhira lagula tartama loogu faana hadda waxay noqotay inay markaa lagu tartamo adduunyadii keliya imisuu leeyahay imisuu haystaa hebelba waa helay anna maan helo hebel waa batay anna maan bato hebel wuu yeeshay intaasoo daarood intaasoo malyan intaasoo lacag intaasoo ganacsi waxaasuu keenay laysma weydiiyo badanaaba maxay ku timi siday ku timi hebel muxuu bixiyey oo thaman price muxuu bixiyey naftiisa diintiisa muxuu ka bixiyey si uu helo waxaas badanaaba isma weydiiyaan dadku marka ay khafladu hayso oo waxay la mid yihiin kuwii ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan kariimka inoogu sawiray xayaatada adduunyada keliya ay maaragtay cajabinayso qaala aladiina yuriiduuna alxayaata addunya yaa layta lana mila maa uutiya qaaruun inahu laduu xadin cadiim halkaasun bay ka taagan tahay markaa waa ninku nasiib badanaa oo xoolo badanaa waxa ilaahay siiyey waxa la siiyey haddaan lahaan lahayn shallaytinka iyaga kadibna waxaa loo marayaa yani ahwaal iyo maxaan kuu sheegaa waxaan caqliga keeni karin si adduunyadaas loo gaaro arrintaas waxay keenaysaa in markaa isxusuusiyo ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka kariimka ah had iyo jeer dadka mu'miniinta uu xusuusinaya bini aadamka o dhanna uu xusuusinaya gaar ahaana dadka mu'miniinta ah ayaa lagu soo celcelinaya jimco walba aayadaha aynu ku tukanno oo imaamyadu inagu tujiyaan masaajidda muslimiinta sidii sunnada nebiga calayhi salatu wasalaam ku tuji jiray hal ataaka xadiidu alghaashiya iyo sabbix isma rabbika alaclaa haddii aada u fiirsato aayaadka suuradda iyo suuradaha yacni badanaaba waxaa lagu xusuusinayaa dadka jimcada isugu yimi in la xusuusiyo adduunyadan ay ka yimaadeen bayc mushtarka ay ka yimaadeen daaraha ay ka soo baxeen xoolaha ay ka yimaadeen wax ka khayr badan oo ka wanaagsanay inay jiraan iyagu taasay badanaaba isku taxallujiyaan oo wakhtigu ku dhaafa oo cibaadadii ku dhaaftaa oo aakhiradii ku dhaaftaa in badan oo ka mida laakiin inay ka khayr badan taha la xusuusinaya bal tu'hiruuna alxayaata addunya والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وحا إلهي سبحانه وتعالى تصيا آياتها ركعة اللباد يعني الدنيا ذن أي عندها أتاقي يعني لقصوا الليحيون لقصوا الليحيون قال صورة وحيقول هل أتاك حديث الغاشية تهويل وين عظيمة
marka qofku waxa la rabaa inuu jumcadii ka noqdo isaga oo aad u cabsanaya isaga oo wacdi qaatay buuxa charge qaatay isaga oo qaatay shuxnad oo og war cusub kaanama uu ku soo dhacay war ma ku yimi khabarka xadiisul ghaashiya ma maqash hal ataaka xadiisul ghaashiya kaasaa ilaahay subxaana wa tacaala ka warramaya naartii iyo jannadii iyo sida xaalku ku dhammaanayo marka adduunkii aad iyo aad ayaa loogu maaragtay dadka muslimiinta ah uu farakul lagu haya in la isxusuusiyo marka yacni quluubta in lagu dadaalo oo check up lagu sameeyo oo kashfi lagu sameeyo oo qofku qalbigiisa baarbaaro waa arrin muhiima alla subxaanahu wa tacaala liibaanta oo dhan wuxuu u tiiriyey qofku inuu qalbigiisa tahiro qad aflaxa man zakkaaha waqad khaaba man dassaaha naftiisa qofkii tahiray oo hagaajiyey oo macaasidii ka tahiray oo aakhiro u jeediyey qofkaas waa liibaane qofkii naftiisa hilmaamayna oo hoos geliyeyna hadda kaasu waa khasaaray ee waa hoogay qad aflaxa man tazakkaa wadakara sma rabbihi fasallaa aayadahaasaa ku jira suurat alaclaa marka in qalbiga had iyo jeer la xusuusiyo culimmadii salafka saasay oran jireen yacni sida laga wariyey maalik ibna dinaar wuxuu yidhi afar waxay ka mid tahay cilmu shaqaawa cilmiga shaqinimada kow waxaa kaa qaswat اlqalb wa jumuud اlcayn wa tuulu اlamal wاlxirsu cala اddunya afartaasu wuxuu yidhi cilmiga shaqinimaday albaab u tahay qaswat اlqalbi wa jumuud اlcayn qofku inaanu ooyahayn oo ilaahay subxaanahu wa tacaala marka uu xuso warajulu dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaahu buu ilaahay wuxuu ku siiyey fii dilli carshi araxmaan dhibic indhihiisa ka timi ilintiisa ka timi isagoon cidina arkin cidina la joogin oo khaliya lixaalihi soo tusinaysa ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha qiimaha uu ku bixinayo yacni kumanyaal kun oo ragcadood oo qofkii uu ku tukaday sunan ah oo masaajidda ama dadka uu ku tukaday laga yaaba dhibicdaasu ayay dhaaftay oo ka xoog badatay maxaa dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala maaha wuxuu qubinahu bilkahra wax badan oo aad samaysay keliya maaha iyo kabashkabash kabashkabash maaha waa deganaan marka markii uu sheekh shariif sheekhana sheekh shariif cabdinuur raxmat ullaahi calayhi ka hadlayay xadiiska yani qofka salaad buu ku jiraaye salaadda markuu u soo socdo waa inuu tartiib cala sakiina dadka qaar baa ku derderaya xusul buu kugu dhifanaya kuma jeedaba waaba ku dardari wuu kugu istaagi nebiguna calayhi salatu salaam wuxuu leeyay salaadda haddaa soo aadaan calaykum bisakiina haddii midkiin salaadda uu soo aado ha socdo si sakiino leh maxaa dhacay dee salaad buuba ku jiraa fa huwa fii salaati salaaddu waxayba soo bilaabatay markaad soo weysaysatay oo aad soo qasaday inaad masaajid ka timaado salaad baad ku jirtaa waad ku dhex jirtaaba waanad xiran mooyaane waad ku jirtaa salaaddii anta fii salaati waayo sababteedii baad ku jirtaa nin salaad ku jira oo ordaaya marka baladi ka waran ama dadku joogsanaya dadku istaaga sax maaha markaa wuxuu yidhi sheekhu kabash maaha jannadu tartiib u soco dadka waxba hayswaaleen oo haysdejin marka kabash maaha waxa weeye qalbi saakina iyo sukuun iyo khushuuc bay u baahan tahay sahl ibn cabdillaahi nin la odhan jiraya wuxuu yidhi cuquubo kasta kullu cuquubatin waxay leedahay طahaara ilaa cuquubaة اlqalb cuquubo kastaa yani طahaaray qofka u noqotaa
حلو هدي لا جيدلو هدي لا وحيو هدي لا هدو زينيستو هدو كذا سميو دنبي هدو سميو إلا عقوبة القلب أما عقوبة قلبك هدي حمان كاغش يغفل كاغش فإنها قسوة عقوبة ذو قسوة قلبك إن لقلجيو لقى قلجي وقلبك سي قلب قاسي لقى ديو فويل للقاسية قلوبهم القاسية هوب باو سغنادي iyo cadaab iyo bilaaw marka walaalayaal qaswadu qalbigu inuu qallalo horta wax kasta asaas bay leeyihiin haddii aynu warka oo kooban markaa sheegno waxa weeye inaan wax ka tilmaano waxyaalaha muuqaalka u ah oo lagu garan karo qalbigii inuu adayg soo galay sababaha keenaya iyo waxa cilaajka ama daawada u noqon kara saddexda qodob inaynu mid walba wax yar ka taaban laakiin inta aynan gelin saddexdaas waxaan jeclahay inaan tilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay qur'aanka kariimka مفتاح كل خير كسته فره يسيبه إلهي سبحانه وتعالى كدق الباب كيسيبه كدق هديت هاي قسوة القلب هديت هاي يعني كسل عبادتي هديت هاي حمد جدك ولا قال هديت هاي الدنيا جعيل هديت هاي جهلي هديت والبا داوين ونغض وإلهي كدق ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور هو الأبد قلبي قاعد داويه يا شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين إلهي سبحانه وتعالى مركا قرآن الكريم كأه وح وقونا أكسن وفيعا هديتها قسوة القلب هديتها الدنيا جعيل هديتها معاصي هديتها غفلة هديتها آخر الدنيا هديتها جنة عررد يا نار كعررد هديتها آياتها إلهي علمك يا أقوند كل جد مولدك لقى عب ولقى قاتها وقرآنك كريمك أنت مركا لدقنته أو اسكت ضيدو إناد لنولاته واتفهمته أو تدبرته أو اسكت دقنته أو لنولاته أي فائدة ذات نقونيس مركا واحد نفتيدا إيو ولا لها إيو كارهنا طلبة العلم dadka cilmiga dhalinyarada cilmiga dalbayso iyo ducaada aan u dardaarmiyoon xusuusin inay ku dadaalaan xiriirkooda kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala akhrin iyo tadabbur faham ku fekerid dhegaysi ku noqnoqosho la noolaansho iyo in aad mafaatiixdiisii hesho oo aad gudihiisa u dhacdo ilaa aad jeclaato oo aad la noolaato gudihiisa uma dhici kartid gudihiisa ma gelaysid waa wax qiimo weyn waa qur'aan cadiim وإلهي تعالى ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم القرآن الحكيم وإلهي تعالى كتابك سيدا أسأل ما واحفظت لكن قفك إلهي أفضي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر هل كان سؤال شو لقوا يدينا أذيقوا سيدابة قابشة انت قابشه أي أذيقنا وحيلي دادو نقول إنسان مركة تاس وادر دارنك قود إيا داود قود وان لا يهي
in dhalinyarada iyo ducaadda iyo dalabatulcilmigu ay ku dadaalaan xiriirkiisa iyo fahamkiisa iyo tadabburkiisa inay fahmaan risaalada ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa u dhaxeeya asxaabtii iyo dadkii ka dambeeyana waa intaas dad qur'aanka la noolaa oo la noolaaday laga yaabo qofku caawo dhan hal aayad inuu la nool yahay caawo dhan waanu ka dhergahayn halka aayad aanu ka dhergahayn ugu soo jeedo kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo ay la nool yihiin 2 saacadood 3 saacadood 4 saacadood 5 saacad uu la nool yahay aanu ka dhergahayn jus iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 uu ku tukanayo uu taagan yahay waanu ka dhergahayn siday isugu mid u noqonayaan dadka sidaa u dhadhansanaya oo ugu macaansanaya oo u fahmaya oo ula noolaanaya oo u saamaynayo iyo dad intaasoo dhanba qaafilka ah ama aan ogeyn ama uu afka ka marayo ama aanu halkan u dhaafayn jarragta kaliya ay tahay codka ay tahay inaana saamayn jirkooda iyo qalbigooda aanu ku yeelanayn marka walaalayaal aan isku dayno dhalinyaro dalabatulcilmi ducaade inaan horta fahamno kitaabka ilaahay la noolaan faham cusub iyo nolol cusub inaan la noolaan noloshiisu waa diyaar mar walba nolol cusub uu ku siinaya taa haddaan ka soo gudubno yacni aan u nimaadno waxyaalaha ka muuqanaya yacni lagu garan karo qalbigii inuu qaasi noqday ama qaswa ay soo gashay waxay yidhaahdeen culimmadu kow waxaa ka ah qofku wahsi baa ku beerma wahsi can itaacaat takaasul can itaacaat daacadii iyo acmaashii khayrka ahayd baa wahsi ka galaa salaaddii baa wahsi ka gelayaa waxay iska noqonaysaa markaa xarakaad unuu sameeyo istaago rukuuco sujuudo uu ka baxo laa khushuuca laha imaamka aayaduhu inagu tujiyey hadda ee suurat almuuminuun u horeeyey shanta aayadood kow suuraddu waxay ku bilaaban qad aflaxa almu'minuun kadibna wuxuu ilaahay sababta falaaxaas iyo liibaantaas u tiiriyey khushuuca salaadooda maaha salaad keliya inay tukadaan dad badanaa tukada الذين يصلون مدهن آيات لأنه ضد بدنات كذا الذين هم في صلاتهم خاشعون يكون قيدا تهي أو كحرا تهي أو كدفرا تهي ضدك صلاة ضوضة كخشوعة أو صلاة خشوع له كذا مركا wahsiga salaada ka mid ah acmaasha khayrka ah cibaadada dacwada wahsiga ka soo galay in waxaa arkaysaa firfircoonaan jiray oo dacwada ku firfircoonaa oo yacni khayrka iyo dacwada iyo meelaha khayrka lagu hayo iyo laakiin muddo kadib adduunyo intay mashquulisay ka mashquulay laga yaaba inaanu ogaan in arrinkaasu arrinka meesha uu ka socdo inay tahay qalbiga oo qaaswa ay soo gashay jira qalbiga soo gashay marka inuu daaweeyo oo dib ugu noqdo bay u baahantay ilaahay subxaanahu wa tacaala kan ku tilmaamay kasalka munaafiqiinta wahsiga munaafiqiinta luqta walaa ya'tuuna asalaata ilaa wahum kusaala ولا ينفقون إلا وهم كارهون وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى مروا البوه حسنية عليس بيكوتا وحكالتو كمدا وحيالها لغو قرطو قلبي إنو قسوى ما أضيك فجر صوق شيء ومركا موعظة إيو آياتك قرآنك أي كسامين ويان
saamayn markay ku yeelan waayaan qofka oo aanu ku ta'ahurin oo aanay taaban oo aanu la tafaaculin marka ama ha ka dhegaysto qof ama isagu ha akhriyo ama qof kale ha ku akhriyo aanu wax ka maqlan ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka wuxuu noogu tilmaamay dadka mu'miniinta ay ka faa'iidaystaan inay yihiin kuwa markay maqlaan qalbigoodu kacayo isbedelayo oo ay wax ka bedelayso oo aakhiro xusuusanaya oo adduunyadii kasii go'aya oo ay ka yaraanayso qalbigooda fadakir bilqur'aani man yaa lagu xusuusinaya man yakhaafu waciid waciidka aakhiro qofka ka baqaya wey ilaahay subxana wa taala kan leh aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana laakiin aayadihii haddaad sidaas ku soo gashay uga baxdo waxayban kuu kordhin oo iimaan kuu siyaadin qalbigaa wax ka jiraan marka qalbigii wax ka jiraan degdeg inaad u gaartaad u baahan tahay iscaaf aada gaarsiiso waxaa kaloo ka mid ah waxyaalaha hareerihiisa ka dhacaya iyo axdaasta aanu qofku ku cibro qaadan hebel baa dhintay aayaad baa dhacay dabaylaa dhacay roobab baa dhacay daadad baa dhacay abaaraa dhacay waxbaa dhacay aayaad ilaahay way waxaan maaha wax iska dhacayo sudaf maaha laysat hadihi min asudaf cirku markuu soo madoobaada nabiga alay slat slaam ama kusuuf uu dhaco ama qorax soo madoobata ama wuu argagixi jiray salaad buu noo jideeyey uu tukado dabayluhu hadday dhacaan wuu argagixi jiray wuu cabsan jiray maxaa dhacay qoom baaba lagu halaagay buu yidhi dabayshan maxaa dabayshan ma aragtin miyaan annaguna iska dhex marayna annagoo sidaan caadis kaanu lam yaxdus waxba maba dhicin nalama aha waxba inay jiraan dabaylahan iyo duufaanahan iyo waxaan soconaya inay tahay junuud ilaahay soo diray يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها يا الريح صدري إلهي صدري فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا ريح عاصفة قوم بالغوه لك سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى بريح صرصر عاتية وإلهي بصوص خلال مركا قفك قلبك إن قلبك وحكا جيران وحاد كقرات وحال كقرتا وهذا نفط هذا كقران قرتا بل آياتها إلهي يهريرها وحكا دعاية جيريدة يحمالها إيو ميلها مريسو إيو أحداث دعاية يا bal sida aad wax ugu xusuusato iyo sida aad u garab marto isfiiri dib isugu noqo haddaad garab marto iska garab marto aadan waxba ku xusuusan oo waxba ku cibro qaadan oo waxba ayan kaa bedelin oo cabsi ayan ku gelin qalbigaaga waxba waa qalalay iska jir qaswa jirta awalaa yarawna annahum yuftanuuna fi kulli caamin maratan aw maratayn ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون لا يتوبون ولا هم يذكرون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون قلبي وذبا قاسي نقضي مصائبتا صعطة مصائبتا صعطة أو نقول عيسى وحسك صدفاء ما يا إخواني وحسك صدفاء ما وحسك صدفاء ما أنا هذا الصومالي مسا صعطة مصائب وما ذكروا مسلمة مسا كلو كصعطة وحاسو دنا مصائب وما ظهر إسلامك لو صلي عدو لو صلي
dhulkooda la qaato xoolahooda la qaato iyagii maaragtay la laayo la xasuuqo la kala qaybsado dhibaatooyin iyo dulmi lagu soo sallido mujrimiin lagu soo sallido dhiig lagu soo sallido wax dhibaato ah oo kala duwan oo masaa'ib ah inay ku timaado oo haddana laa hum yatuubuuna walaa hum yadakaruun sanad walba waa dhacaysa laa yatuubuuna walaa hum yadakaruun taas waxay ka mid tahay qalbiga qaasiga ah musiibadu marka ay ku dhacdo qalbiyada ay garan waayaan meesha looga yimi iyo xaaladdu waxay tahay iyo aayaadka ilaahay oo dhacaya waxaa kaleeto oo ka mid ah aakhira adduunyada oo dadka aada u jeclaato ama qofku aada u jeclaato hamigiisii iyo shuqulkiisii shaaqilka ahaa iyo waxa uu ku fikirayo iyo fikirkiisii iyo caqligiisii iyo waxiisii oo dhan juhdigiisii oo dhan dadaalkiisii oo dhan wixii ilaahay siiyey mawaahib buu ilaahay insaan ku rakibay ilaahay xoog buu geliyey wax badan caqli buu ilaahay geliyey bani aadamkan adduunyada wuxuu yidhi wixii intifaaca oo yar oo jicsinkaaga ah kaga qaado oo u isticmaal waxaan ilaahay ku siiyey laakiin inta ugu badan u isticmaal aakhiro wabtagi fiima aataaka allahu addaar alaakhira walaa tansa nasiibaka min addunya وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إلهي سبحانه وتعالى مركو كهلي قالوا أنك حولها بدنا أدونك مركو واحد إلهي أوكسيي وحكس حولها النقط جاها النقط سلطها النقط حكمها النقط أو وحكستها النقطين على الرباء إلى آخر قدونته لأن تاسع قيمة بدنا الدنيا تاسع قيمة إحنا سو دقما وإحنا سبربر دقما وما متاع هدي متاعتنا الليلة ومتاع سأت كجرته وهذا حول كل شيء فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا قليل لا يذكر أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون سبحان الله آيات داس في مركز طوان مقرأ علماء دي كم ويستاجد جريء توقف أفرأيت إن متعناهم سنين وهذا في الهدان سنة سيدينه بقول سنة لا بقول سنة كنت سنة وأن برواقسين متعناهم سنين كذبنا عذابتي إيه دي الكتب ماتوا إيه قيامه لو يضاهي ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هل حبه وحي مطر لا لو متعين بحتى رسا مرك وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني قفك أدونك وقل نعمة بدنا أيا لكن يوم القيامة يؤتى بأنعم أهل الأرض يوم القيامة ثم يغمس غمسة في النار ويقال له يا ابن آدم هل رأيت نعيما قط ولقى وح نعماه ما أركت وكي أدونك قل نعمة بدنا ولقى جر ما أرك دب ما أرك حمول ما أرك قاجة ما أرك وحوم ما أرك راح نعم بكجر أدونك أنت بكجر هل مرة نار تلتافس ولا سوي ولقى نعمة ما أركت ما أرك الدنيا ساسة ما هنا قصص وأنا وحي مركب كراسته لكن هذا ولا ليال أدونك وحنا ركينا عندك لو بطي حقاس حتى صان شقني يعني ذاتك طلبة العلم لها ذاتك أهل القرآن كها ذاتك تطبضن بجيدة باش أو مررك قاركود حاران حلال حتى أنكل سوعي أو شبهات يساوي أنكل سوعي أو قيل سكر سن لها رادني قيل سكر رادني إسرائيل يعني قناع السجا صعدة iyo waxyaalaha adduunka marka aad aragto mararka qaarkood waad yaabi ninba maalin wuxuu ugu lahaa islaam baan u tegey eedaday ah waagii guryihii dubaya dhaadheeraa
لإيبنا هوذا كطفنا لغو خسارة وهلا لسو صورة تاورو إركاس كترن قروح بدن قول كي جيف كواكن قول كي فدي كواكن كي كلا واكن كي سيلا واكن كن كلا واكن كن كلا واكن هاي سأنتي ما وحنو جايب ويوحق قروح بدن مركز هذا متقضو دماغ متقضو مركز تراي ما عنده ميقا حوجادي قرورني سيو عفرتهم كنتم كل لحظة $1 وين لما كاجي يبشنا حبط بان قاضي markaas ma kaasan ku yiri buu yiri ma heedo tartiib baa u bixinaysaa oo guriga markuu diyaar noqdo baa markaas waxa ku jiri islaam waxa akhriso waxna qorto ma aysan muslimada markaas ay tiri maxaa sheegaysa markaa dhamayso markaa maxaa guriga ma waanu diyaar ahayn adiga iibinaysa hase ma heedo ku dira waliba lama baqodin ba saas laguma taaban ma jarafad laguma taaban markaas ay tiri ماندو إنا لله وإنا إليه راجعون قرما والتي هذا هو حنكو أمير قبه هذا ما والنا محله وماندو ما وح هذا نهاين أو أن لأوجين قرة تبع هذا إبنيس بيت أنا وحنقول هقول بعد إبنيس مركز ليه إيش راح يسوي أساسي قري جره أو يهل أو هذا عليه إبنيس هو أدلة رهيبة بان ملايين يعني ما وحن بتجرم ما يدو ولي بقرر ومصان أنا جوا واحد يقول يا ربي كم بلال أقول أو حنقول الإسلام تاني يا بري يدو هذا علم وما لكن فطرة هذا إسلامي هي أمانة يدو ليس إنه النبي عليه الصلاة والسلام هو بدجيه قاعده بيع مشترك ودجيه وننقنع صداقه كوير لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك ها وح هذا هين هيبن نقاس وحكوير الرسول قال ضد باي إيمانية بيع مشتربانها وحبي بضاعي ويدينيا وحي ما هيو أنا مركز أنت عن أصوب قضه يا أنت كي يبيو عن أصوب قضه أو مركز أن كي يبيو مركز كوير النبي عليه السلام لا تبع ما ليس عندك وحبقف كان هكئيب وحاضن هين أو قعنت كو هين هكئيب ما قال يهدأ سيانا يعني مسألة فقهية أقلن أو يهدأ والله يقفصن والله يقصو ياعن وحوي culimadu beecan oo maaragtay shaygii haddii uu sifaysan yahay oo habaysan yahay oo la yaqaano oo waqtigiisii maaragtay xadidan yahay oo beecu salam baa looga qaatay oo mas'alooyin fiqhi waa jiraan saas oo qiilo loo raadiyay ahmadiina waa fiqhi sal fiqhi ya laakiin naskan weyn ee fadhiya meesha حديثك بامير لو دافو لهين wax kasto oo la malmalooqayo ama fiqhiga ama meel wax laga xoqo ama la isku dedejiyo ma dhaafaan aakhirka natiijadeedana waa la arkaa oo waxyaalo badan baa laga arkaa marka waxaan ka wadaa tusaale yaani waxaan u soo qaaday ninkaas wuxuu yiri anigi maalintii baa iigu dambeysay waan ka baxay waxaan ku meeshiina inta aanay dhulka ku soo dhaceen anigu waxaan tagay Dubai waan soo maray markaas waxaan arkay meelo malaayiin dollar $100 milyan $50 milyan dad laga ururiyay taawaro la yiri waa laga dhisay oo aan waxba ka dhisnayn hal dabaq xataa ka dhisnayn dadka lacagta waxa laga qaaday guriyo waxa laga iibiyay taawaro 5 dabaq 15 baad ku yeelanaysaa guri dabaq 15 mee ma dhismine ما دسم دونا ما دسم دونا الله واحد مركا وحوي هرت الدنيا جعلك نميه وحبضن بوكاني وحوي مركا وحيالها قلبي حوا قل جيبي كم تهاي من وجهي مسألة كمان هذه في القياه يان لديهن هذا استيتي عندي سنة يقولي عندي سنة يبون نجا ما رحتي وذات كان دولان كويه وحكلته كم ذا وحيالها أسود اللجوء قرطو حيال اللجوء قرطو حكم ذا
قفك يعني وحو دريما ضيق الصدر حوغا يعني وحشو دريما استريس بو دريما وحو دريما ولول وحو دريما يعني ديبريشن وحلا يراهدو مشاكل dhibaato wareer isku dhaxyaa ya ayuu yan ka bixin hatta iska xanaaqayo caradiisa badanayso qayladiisa badanayso islaantii iyo caruurtii iyo wixii oo dhan hatta ku qaylin waay waxa soo dhanna waxyaalaha keena waxa waaye qalbiga markii uu ka yimaado waxyaalahan ay ku yimaadaan asbaabta aanu nimaadno asbaabta ugu weyn dhowr xabaan ka soo qaadan doonaa oo qaswada keenaysa waxa keena koow oo ugu badan waa macaasida iyo muharramaadka markay qalbiga ku bataan xataa hay yaraadaan muharramaad saqiira macaasi saqiira xataa haday tahay waxaa leeyahay macaasida yar lama fiiriya cidda aad caasinaysaa la fiiriya ومعصية يرتن ومارت صغائر الذنوب يا مايا مدة كلام قفكم مركا حتى معاصب وين بقانو قليني سنة ياشا إيو نوافشة وماركت فضوليستو وحان كجرين حدود دي واجبات كانوا دعايا ما دعي نوافشا وحينضاب يحدوده بفر الزون وإناذا واجبات كي ضيعين بيوتهاي حجاب إناد نوافشي رواتبتي صنياشي إلى لسو واجب ما ضيعيس واجب كوربتك هداد مثلا ظهرك أما عصرك أما عشاء أما مغرب أما صلاة الفجر رواتب الليهن مثلا هدي هذا رواتب ظهورك توكنيس شكي كمجره ظهورك إنه بنانك وحكلته يؤدو ذهي هنا الخشوع هش يؤدو ذهي إن أبى الجود لقاعد يقول خشوع إن واجبك صلاة واجبك مركز قشوا أما قرآنك على خرسوات كويش هذا عي كهرباد واحد قشي صلاة كله أو سنة وحيوصي نقطي تمهيد أما جوجل حال جوجل دك إن يوصي نقطة واجبك إيمانية وويناء وعسرة ويسدي بكسي الرئيسي oo si degan aad u weysiisatay oo aad isdiyaarisay oo aad salaadii u diyaar garowday marka laakiin aqimka hadaa sugto ya oo markii la aqimo aad soo ordo oo safka soo gasho adoo hadda ka soo baxay muran siyaasadeed muran fadhi ku dirir adiga iyo qolo kale baac mushtari iyo xisaab isku haystay dukaankii baac mushtari alaab maartay khasaaro iyo waxyaalo lagu jiray iyo wareerkeed qajajacdi adoo ka yimi baad safka soo gashay soo meeshii kama sii wadaysid marka xisaabtii un baad meeshii ka sii wadaysid marka assalaamu calaykum tiraahdaa ordaysana waxaan maxaan tukan maxaa lagu tukaday wallaahi ma ku tukaday horta ragcadii koowaad maxaa dhacay adoo dhanba waa maqnayd maba jooginba maxaa tukatay dee waa tukatay laakiin maad ku khushuucin salaadaada salaad xaadira maahay marka waxa weeye sunnayaashan iyo nawaafishan xataa qalbiga ayay qaswadiisa ka qayb qaadanaysaa sababtoo ah waajibkiibaad marka dambe u dhacaysa waxaa kaleetoo ka mid a qafladdu waa cudur weyn qafladana waxyaalaha ugu weyn waxa weeye dikriga ilaahay subxaana wa tacaala iyo rawaatibtiisa marka aad ku tahaawuno qofka ku tahaawuno ilaahay subxaana wa tacaala u kulxiyo wadkur fii nafsika tadarucan wakhiifatan ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين
أقول ما لو ليه هي الصبح قلب فسبح بحمد قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ووقتها القرآن ولا قل لي هي حص إلهي سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين من الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كما دار أنا آياتكم تربذين لكن وقتها المعينة لو تصيا خاصة قلبت في صباح دي أذكارتي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وأهكو غافلين تام غفلته مركب عذر حنوية وحانا سببه مركي أذكارته iyo waqtigeeda استغفارته صلاadaha iyo tadawucaadka uu qofkii uu maaragtay ka gaafil ka noqdo ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwaas wadaro ulaika humul ghafilun ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون ولا بهم أعين لا يبصرون بها أولئك محيي الله سبحانه وتعالى كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أعوذ بالله من تعالى وحكم إذا أصبابها الدنيا إيوه كشاكين تيدا بدن إيوه تعلق هذا إيوه قلبي إنه كحر ناضه الدنيا دنا لبا أرين بأقوى مهمسة لبا أرين نبينا عليه الصلاة والسلام تلمام القرآن كانوا كتلمامته وأنا لبا فوق ضدكو زمن كان أي كإبتليسين كنا امتحامين إلا من رحم الله قف إله ونحرس طمعين وحولها iyo xukunka baabka siyaasadda loo maraa soo maha marka jago iyo suldaan iyo power and fame iyo xoolaha wealth marka labadaas nebigu calayhi salaam wuxuu ku tilmaamay laba dhurwaa oo kugu dhex nool inay yihiin oo diintaada doonaya inay cunaan oo baabi'iyaan waa laba dhurwaa oo halis ah oo inay diintaada eber ka dhigaan u taagan subaxda inaad marka iska yurayso oo iska xadayso mooyaan diintaada wax ka hari maayaan waa kii xadiiska nebigu calayhi salaam ku xadiis tirmidi iyo imaam axmed iyo nasaa'i meelo badan oo ku xuseen culimadu ku sheegay maa di'baani jaa'icaani ursila fii ghanamin biafsada laha من حرص المرء على المال والشرف لدينه لبا دروا لبا يي لغو سي دا او غاجيسن او لغو سي داي اري ميل كجره او خيران سي اوبابي انيان يا كما يرى سيدا حولها iyo magac doonk ya ay isku taxallujinteeda haday yani nabi calaysaan wuxuu ku xadiday isku taxallujinteeda iyo raadinteeda ku iman kartaa baa lagu garan karaa famous waa iska noqon karta adoon ba maartay raadin ilaanada culimadii waa weynayd imaam shaafici imaam abu xaniifa imaam ibn qayyim imaam fulan ilaahay dhikri buu yeelay ilaahay xasb uu yeelay laakiin meesha waxa laga hadlay waxa weeye isku taxallujin adiga aad raadinayso waliba waa aafadan dambe magac raadinta iyo famous inaa noqoto waxyaalaha talabatul cilmiga cudurrada u ah bay ka mid tahay oo aan aad loogu baraarugin laakiin hadda ayba ka daran tahayba oo waqtiyadan ay soo baxday meediyada iyo social media iyo Facebook iyo internet iyo qofku wuxuu leeyahay like iyo raadi xagga igu sawir xagga iyo halkay waxaan rabaa in la aqoonsado in la maaragtay aan caan baxo in intaasoo kun like aan helo ilaahay baa idinku dhaariyay kun like hayga bakhaylina buu ku leeyahay maaragtay بالله عليك يعني هيغا بخيرنا يعني قفكي إلهي رسولك آمن سن يو دافن ماشان إلى وكن لا يقرأ أما كن شير سما يقول لي
maxaa adeerow adiga kugu wataa wixii sharkarayaan wixii haddaayaan marka waxaasoo dhan waxa way qofkii wuxuu rabaa caanbaxeed wuxuu rabaa magaca iyo jagooyinka raaginteeda iyo maaragtay dad baa saacado iyo habeenno inta hadday salaatuleyl u taagnaan lahaayeen waa horeyba janno geli lahaayeen maba albaabadeeda lagamaba celiyeen laakiin waxaa laga yaabaa jago yar in la siiyo inuu u taagan yahay habeen iyo maalin salaada ku dhaafto oo soon ku dhaafo oo sadaqada ku dhaafto oo khudbadu ku dhaafto oo cilmigu ku dhaafo oo dikrigu ku dhaafo oo xusku ku dhaafo oo wax walba ku dhaafaan oo khayr intuu sugaayo hebel albaabkiisa taagnow ama adduunyadiisa wax yar ka hesha marka waxa weeye xirsiga kaasa buu nebigu calay slam tilmaamay ama haddii adiga ku soo raadsato ama ku timaado ama adduunyadu timaado qalbigaagana aanay ku jirin waxna aanay qiimaa kula lahayn hadday timaado iyo haddayna iman taas kuma jirto min xirsi buu yidhi xirsi almar'i almuslimi cala almaali waasharafi lidiinihi marka nimayo adduunyada roonkaasuna qalbiga eber buu ka dhigayaa waxaa ugu dambeeya ugu daran geerida iyo hilmaamideeda iyo aakhiro taasuna waa waxyaalaha qaswatulqalbiga keena قلبنا الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين قفك مسلم كان مؤمن كان حلف اللحاي وقف عبسي كل الله عبسك قالوا لي آخره عبسك قالوا لي هو الولسين في خوف وجل أبو بكر يا عمر يا من ساحن جرى هبينك أويي دنبيك عمو إقرية أو يجون نول ليري جنات جليسا مرقاتي إلهي سبحانه وتعالى كان كلسي بأوينيا وحد عين معرفة أي أجادين إلهي سبحانه وتعالى أي برتين أي قوة ديسة أي حساب سي عظمة ديسة أي جنة ديسة أي نار ديسة أنت برتين annagana aayadihii waana hor yaallaan habeen iyo maalin waa nala ku garaacaya qalbigeenna lagu garaacaya maba gelaysa falaqtaxama alcaqaba wamaa adraaka ma alcaqaba fakku raqaba aw itcaamun fi yowmin dii masqaba yatiiman daa maqraba aw miskiina daa matraba ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بان لله عقبضها صدد انت له ما هنا ما ضافيان يا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ساكين تبا قدمت دول كان وقدمت مسلمين دول كان قدمت دولنا هذه قدمت مامور هذه قدمت أليس هؤلاء قلوبهم قاسية؟ سيد ما عندك على شو يدين قلبي وذو قاسي وين؟ مسلمين تاسي ما قلبي وذو قاسي ونقول وإلهي إليه هي كلا إنه لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين مال مسكين يا يتيم كد المية هي هدار عرقته عرضي إلهي بفقه إدنها ويدين هذا إلهي قرآن كساس يسوحر نارته إيه عقابته واحد ودتك كوجليه إيوه نحرس الآنت هو إلهي سنع لك هذه يجري سنع لك ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين حاكوا هي ها صلاة محاكو حيك مصون محج مسكو مصدقو محاكو حيك بيع مشتر ما ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين ترب ما نهينا وي سيدا بأنا قلوب تصبر كغاسوا كولا ليال إن له المامو وحاسنا وقلبك قاسية علاجك وأنت بدل كذا هذا ربط داود وأنت بدل كذا هلا بديو تفكرك يا نظرك كتابك إلهي هلا بريو إلهي سبحانه وتعالى برشديس حقك برنيسا كتاب إيسا كبره
كتاب كيس معرفة إلهي كتالا إلهي وحو اسكو كابري كتاب كيس ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل ثمرات إلهي سبحانه وتعالى سكا بريا آيات القرآن كدبه النقو ومعرفة إلهي بأسمائه وصفاته وبآياته سكا بريا مركا قلبي يعني كويناته إلهي سبحانه وتعالى الإكثار من التوبة والذكر هنا بس التوبة هي ذكرك خاصة وظائفته هبينك هي مالنتي قرقرتن هكجلين مجامله هككعين سياسة أهيدا قناعسي بانكو مشغول صناعي سياسة بانكو مشغول صناعي شر بانكو مشغول صناعي ميتنا بانكو مشغول صناعي مصلحة ومدى بانكو مشغول صناعي المية وحبك مجرى نفط هذا إلا ونرت قوا أنفسكم وأهليكم نارا نفط هذا ورتبت بعدين فيرست اوف اول اذكر انت هذا متبادل كميتي سي سكونيا iyo sharar sii soconaya oo salaadii looga tagayo oo adkaartii looga tagayo oo sunantii looga tagayo oo quraankii looga tagayo oo dhikriga ilaahay looga tagayo waxa ka soo baxay waba qallashay adaba qallalay waxa soo bixi hal qabani ha marka walaalayaal taasna mawcidado la dhageysto naftoo la xisaabtamo oo hadii jeer naftaada aad xisaabiso waa arimaha ugu muhiimsan oo aad markaa ku daaweyn karto waxaan filayaa waqtigeenu inta ku dhamaaday jazaakum Allahu khayran walaalayaal quluubteena aan ka warhayno cuquba ka daran ma jirto qofka inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbigiisa qaas ka dhigo kadibna naftiisa uu hilmaamo wax kale oo ka shaqeynaya adduunyo kale ka shaqeynaya adduunyada dad baad u dhisaysaa adiga mali ku cibra qaata imisa intuu taagay rag baan garanaya asxaabtaya saaxiiba wanaagsan fiican khayra u rajaynin laakiin habeen iyo maalin dul taagnaa gurigan xagga ka naashnash xagga ka waxay xagga ka samay xagga ka dul taag xagga ka waxay waxa kugu dhaafaan hawlaha kugu dhaafsan dacwa kugu dhaafsan tasaaqo ibn maalin tu farta ka gooyay bela ويا ولسيس حسابته هذه كوتا الله يا ولسيس لكن عاقل كو ابو درداء وكذا غرغيسا لا سو غلay markaas waxba lagu arki waay dahabi xoolo iyo adduuni markaas uu ninkii weydiiyay ابو درداء اين متاعكم markaas uu yiri gurigan guri ka weyn baan leenahayo xagaasan alaabta u sii dirnay buu yiri markaas uu ninkii uu maleeyay guri kale weyn oo filla ah oo gurigan ka weyn inuu leeyahay guriga u dirtaan حقا نصير درني بيقول على كل حال هذا فهم مركز ونيجي فهم آخر نصير دريوه مركز وحاجة آخر نصير در صاحبه وحي النصيب كان عندهم كان الوصول صعونا يانا حرورت هذا فخري وقتكم مالي هنا لكن عمر بن عبد العزيز بيديه حرورت هذا وحاليه ما حد وتجي سامانت أمير المؤمنين بعد حوله الدون كلهم بقى عن هذا كل جري لا بيه طبعا عيال مركز وحيري وحبوا وتجي معي مركز هذه محا مركز وير هدي ضد صالحين يهين فالله يتولى الصالحين إلهي با أرنكوضا كفالة هدي ضد حن يهين فلن أترك لهم ما يستعينون به على معصية الله وقتي ما يوحي معصية إلهي وقال ما يستان هذيك wuxuu leeyahay nin culimadii salafka kamid ah waxaan arkay oo Ilaahay i tusay aruurtii sidaas waa faqarka uga tagay ninka Umar ibn Abdul Aziz oo midkood kun geel ah kun fi sabiilillah u urrayo iyo ragii isaga ka horeeyay khulafada ahaa oo qusuurta iyo beeraha uga tagay oo tuugsanaya baan arkay labadoodan indhaha saaray marka
waxba qiimo bahashan ma leh yaan la isku wareerinayna aakhirada ha laga fiirsado yaan la isku waalin waxaa yaalla buuggii cusbaa bannaanka ciddii u baahan waa qaadanaysaa ridaha uu yaallaa gabdhaha xaggooda uu yaallaa qoyska arrimihiisu ku saabsan yahay horaan u sheegay sheekooyin iska malaawaala maaha 20 sheekaa ku taalla sheekooyinka waa sheekooyin kulley cibro leh dadka qaarkood horay bay qaarkood u akhriyeen oo aan meelaha ugu nashriyey ama facebookyada qofkii aan fursaddaas u helin ama aan xusuusanna ama doonaya iyadoo urursanna baan ugu talagalay maadaama dadku iga codsadeen 20 sheeko baa ku taalla oo Soomaaliyeed oo dhab ah qaarkood anigu haddaanan si dhab ah ula falgelin waxaan isdhihi lahaa ma aha dad zamankan ku nool baan isdhihi lahaa qaarkood waxay xusuusiyeen saxaabadii iyo dadkii iimaanka u saaxiibka ah taasuna waxay tusinaysaa ummaddan muslimka ah inaan khayrkeedu marna dhammaan ummadda Soomaaliyeed baa waxa laga dhaxelayaa dad saxaabadii shabaha oo saalixiintii hore shabaha waana mucjisada Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummaddan uu keen sheekada u horeysa aan ku bilaabay gabar baa ii soo qortay hooyadeedii ka sheeganaysa hooyo Soomaaliyeed waxaan u bixiyay magacyada aniga u bixiyay dulqaad badana ma dumarkii jannada ninkeed wuxuu leeyahay odageed isagoo ka markhaati kacaya wanaageeda iyo sabrkeeda buu caruurtiisa wuxuu ku yiri maadheeno hooyadiin jannada inay gasho waxaan filayaa intay dhibanaysa kaliya ka xigta هذا الوين odagii wuxuu yiri intay imanayso baa ka xigta sheekadeeda ma soo koobi karo laakiin meesha ku taala ilaa hadaa idin wada sheego waxa waaye buugi ma qaadanaysaan ma akhrineysaan waxa kamida sheeko kale oo la yaab leh oo ayaamaha adduunka aan u bixiyay isbedel badana gabadhaas iyadoo yar gabar Soomaaliya 15 jir ah nin guursaday xogaa idinka tilmaamay ninka markuu guursaday Soomaaliya ahayd barisamaad bay ahayd يعني 6 sano markay isqabeen waxba uma dhalin waxba isuma dhalin meeluhu fiirfiiriyay xaqu fiirfiiriyay xaq xogaa damac baa ku jira wuxuu rabaa inuu يعني caruurna waa rabaa waxna waa rabaa caruurtu Ilaahay baa haye inay iyada ka socoto inay isaga ka socoto Allahu a'lam المهم waxay tiri war hebel xagga u jeensan maxaad rabtaa ma inaad xaas kale guursataa rabtaa markaasuu yiri ha laakiin tabartii baa xoogaa يا حوغا ير مركز تري دب ما له سو غورسو قريان كان قولكا صدقتو عنا قولكا سندي واحد ما في مشكله وايه كونو سو غورسدي قولكي كلو دجي مركي اور بيقاد الهي امركس امتحان ادونك حواله استصي مركي اور قادي ويل بي دشي هادنا حوغا انت كسونا عنو كلا دشي gabadhii kale wali waa sideedii waxa la bilaabay iyadii in lagu dhaga hadlo marka midaan dhalin ma dhalayska ah guriga noo dhaafto dhinac mun meed noo dhaafto tan markii dambe dhaga hadal gacan ka hadal hawl baa lagu bilaabay nin walaalkeeda nimo walaalaheedu xanaaqay sheekadii maqlay oo waxa jira soo farigelin iska dhaaf aniga guriga iyo ninkayga iyo waxayga soo farigelin عجيب مركا قالوا ما ندم ما خايدو كغا شيكي هذا ميدان مدليستا يا غوريغا iga soo saara balaayada ama kada markaas in walaalkeeda isku xanaaqeen adigu xabad buu ninkii kaga fakatay oo ku dhuftay kii ninka ahaad gabdhii asaybay wada qaadeen waa la kala qaxay midaan caruurteedii qaadatay midaan ninkeeda tagtay socda la kala dhahay waa dambe gabadhii iyadoo dhul kala joogta nin bay kulmeen waa sheekaysteen guur bay isla soo qaadeen waa isguursadeen markiiba uur bay yeelatay ninku xaas kale inuu leeyahay uu ka qariyay oo hore xaas kale markuu qariyay yani waxay tiri way ogaatayna wuu sheegan waxaan ka baqay inaad waxaasuu yiri inaad maaragtay diido iyo almuhim gabadhii bay raadisay
markaa isaga waxumay dhaleen dhowr sano isqabeen gabadhi waxay noqotay isla gabadhii hore oo ninku soo qabay adduunyada intay soo wareegatay mar kale baa haddana hal nin wada qaba markaan middaana caruur hel middaana waxba ma dhalayso way ka xiranta waa laga xir marka yani qisada wixii kaleeto ka dambeeyey iyo talooyinkeedii ilaabay ku leedahay gabdhaha haddii aan ula jeedo qiso waxaa ku jirta layaa tallaabooyinka shaydaanka balyahan facebooka iyo social mediada fitno weyn baa ka jirta gabdhahana waa uga digayaa sheekooyinkan qaar ka mid ah oo halkan ka mid ah oo midda la yiraahdo tallaabooyinka shaydaanka khutuwaad shaydaan u bixiyay iyo mid la yiraahdo hawa beena waa lagu hungoobaa labadu waxay ka sheekanayaan gabdho ku dagmay sheekada wiilasha beenta ah ee facebook marka taasna hala fiiriyo wiilasha dhalinyarada qaarkooda dhalinyarada ay soo qoreen nin baa wuxuu soo qoray dookhayga maaha gabadhu waxay ku fiicanta waa gabar fiican wax walba ku fiicanta diin waa ku fiicanta waa qurux leey waa sida laakiin sheekhu dookhayga maaha waxaan adaa dookh xun adiga baa dookh xun hada aduu dookh xun tahay see ku gal gabar diin leh oo qurux leh oo fiican oo reerkii dhaqanaysa oo guriga dhaqanaysa baa waxaad leedahay dookhaygii maaha marka dookhaaga dib ugu noqon ku yeelay iyo sheekooyin kale oo badan oo 20 ah mid la yiraahdo ninkii sodohdu dhibtay hadii ay jirto ama gabar sodohda sidee ka yeelaa qisho la yiraahdo ku jirto waa sheekooyin dhaba waxaan ka wadaa sheekooyinkan Soomaalida wax badan ma qoraan anigu waxa ka mid ah dadka hadda qalinleyda oo isku dayaya inaan wax loo qoro taariikh wax la dhigo waayo qisooyinka hadda kutubta aad arkaysaan oo maktabadaas tiirtiiran waxyaalaha dhacay oo taariikhda iyo qisooyinka haddaan la qorin kutub halka tiirtiiran may ahaateen mana ogaaneen annagana hadda waxa waaye kuwan boor ka jafaynaa Soomaaliyeed oo aan u rogaynaa qoraal haddaan la qori lahayna lama arki lahayn meeshaan ku dhiman lahayd marka insha Allah taala buugu uu yaala qofkii qaatana waa saxiix doona bacda al-ishaa insha Allah boqol xabaat la yaalna idinka dhameys الآن